waayo wax ay qaladkaaga waa inuu wax ku barataa ama dhibka lagu geystay waa inay aqoon kordhisaa مثلا tusaale haddaan u soo qaato Jarmalka 1945tii waxaa lagu dhuftay atomiga lagu dhuftay qajac asoo dagaal la galay Mareykanka meelo badan ayuu kaga adkaaday kadibna Mareykanka suu isaga celiyo Jarmalka wuxuu ku dhuftay atom baan ku dhuftay Jarmalka hadduu laba atom lagu riday uu isdhiibay waa maxay yiri waxaan lagu dhuftay waxaa la yiri atom baan waayahay aqoon waay wuxuu u jeestay inuu wax barto kadibna hadda wuxuu ka mid yahay wadamada haysta nuclear ka ayuu ka mid yahay waayo aqoon uu ka qaatay 1945tii nuclear-kii lagu dhuftay marka idinka hadda badinta ladinku baday aqoon ku qaata mar dambayna si u badan lahaydeen oo isu diyaarin lahaydeen taas halkaas ugu baxo sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa taageerayaasha iyo wiilashii dhalinyarada oo barnaamijkan halkan laga sii duubayo sida dhaqsiye badan ay u gaarsiiyaan Jarmalka haduusan ayaga ahaan lahayn barnaamijdan in badan ma gaarin lahayn maxaa la yiraahdaa dalka Jarmalka wiilasha ayagana waan ku mahadcelinayaa waxaan leeyahay ajir iyo xisanaad ilaahay ku siiyo hadaan u hoos u soo dadago waxa kale oo mahadcelinayaa labadii gabadhii wiilka Faaduma iyo Maxamed waxaan leeyahay inta ka badan waan sugeynaa intaan in ka badan xira agoon way idin sugaysaa xare adagoon way idin duceynaysaa boqolka iyo maxaa hadda la sheegay iyo 26 agoon aad wax siiseen intaas way idin duceynaya duco ayaa ay soo tuurayaan marka ducadaasi waxaan leenahay ilaahay idin aqbalo waxaan hoos hadaan u daadego labada caawa ay ku tartamaysay waxaa ka mid ahaa isku filan iyo ogaalka dunida aan ku hormaro isku filan waxaa la weydiiyey 8 su'aaladood isku filan waxaa ka jawaabtay 7 su'aaladood hal su'aal ayaa hareer martay waxay aruursatay 14 dhibcood isku filan waxaan leenahay dadaala mahambaliyo ogaalka dunida waxaa la weydiiyey 8 su'aaladood way ka jawaabeen waxay heleen halka faa'iideysi way ku darsadeen waxay